rabaa dadka UPD ee qaarkood laga dhawaajiyay dalka dibadiisa ku nool iyo kuwa inta ku nool Ustaad Madaale khayr Allah siiyo dadaalkii ugu horeeyay iyo gurmadkii dhaqdhaqaaqii ugu horeeyay dadkii bilaabay oo kamid yahay UPD xisbigeeda dalka dibadiisa muxuu ahaay jaaliyadaha jirana waa ku jirtaa UPD dawlad goboleedyada muxuu ahaa dadkeeda joogana waa ku jiraan ayagana dadaalkaas waxa kale qayb ka tahay xisbigu uu qayb ka yahay madasha maalin dhaweeto xisbiyada qaran ee lagu dhawaaqay oo xisbigu qayb ka yahayna ka madal ahaan ayadoo xisbi walba goonigiisa oo gurmadkii ugu jira ayaa haddana ka madal ahaan ayaa haddana gurmadkii ugu jirtaa gudoomiyaha madasha madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa asagana muxuu ahaay madashaas iyo magaceeda iyo dadaalkeeda ku jiro annagu dhanna waa ku wada jirnaa madashu miisaaniyad ay qoondaysay jirto oo xisbiyada xubnaha ka la saaray oo xisbi walba laga raba inuu maxaan ku yiraahdaa qoondahaas loogu talagalay kaalmada walaalaha oo la yimaado dhowrka kun ee qoys ama badweynaha joogaan ama bardaaraha joogaan ama meeshii kale baahi ka jirta joogaan waa la gaarsiin doonaa ayada oo maxaan ku yiraahdaa criteria ama sifaha wax dadka wax lagu gaarsiin ay tahay walaalka u baahan iyo walaasha u baahan in la gaarsiiyo ma aha deegaan gaar ma aha muxuu ahaay qabiil gaar iyo beel gaar ma ahan dadka Soomaaliyeed ee duruufahaas adag ay soo wajaheen yaa iskala gargaarkaas oo cidii bixisayna ay u niyeysatay cidii u istaagtayna ay ugu istaagtay marka Ilaahay idinkiis insha Allah maalmaha soo socda waxaan tagi doonaa meelaha dhibaatooyin ka jirto meel kasta oo la tagi karo waxaanan muxuu ahaay gaarsiin doonaa hadii alla yiraahdo gargaar macna leh marka walaalaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaan leenahay loo istaago muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ee la sifeeyay la tilmaamay UPD-na reer beledweyne UPD joogo oo maanta ba iyo shalay iyo baryahan oo intay masiibada socotay dadka dhex cararayay oo waxa gacmahooda iyo maxaan ku yiraahdaa codkooda intaba ku kabayay oo social media taagna oo hadlayay oo dadka gaarsiinayay dadkana muxuu ahaa markaa wixii suurtagal ah lahayay ama xoogooda muxuu ahaa ku kaalmeynay waxaan leeyahay bahweynta UPD meel kasto ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisaba in ay gurmadka si dhaba uga qayb qaataan saacadaha soo socda laana waxa soo degdega ayaa ka khayr badan wax badan oo daaho oo gadaal dambe ka yimaado hadda baahidu jirtaa hadda muxuu ahay wali gurmadkii uu xadidan yahay oo dadka intii la rabay aan la gaarsiinin halkaana laga sheegay idaacadahan ka aragnaa walaalaha Soomaaliyeed ee muxuu ahay dawlad goboleedyada iyo deegaanada Soomaaliya oo dhan degan ama Puntland ha ahaato ama Galmudug ha ahaato ama Jubbaland ha ahaato ama Hirshabeelle ha ahaato dhammaan ama Koonfur Galbeed dabcan oo ayaduba dhibaatada dhinac ka gaartay ha ahaadeen ee gurmadka u taagan ee dadkaas dhibaataysan u gurmanayo aan u mahad celinayaa waxaan leeyahay waa dadaasheen khayr Allah idin siiyo waxaan si gaar sidoo kale ugu mahad celinayaa oo bariyahan ayagana aan social media idaacadaha aan kala soconay rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo ayadana isxil qaantay oo meel fariisatay oo lacag aad iyo aad u badan runtii dadkii oo waxaystay ayaaba ku jira dal iyo dibad isku ururiyay na bilaabay oo muxuu ahaay beledweyne iyo meeshii kaleba ka bilaabay iyo meesha ahaay bardaale gurmadkooda oo already oo iyuba ilaa maanta la sheegayo in kumanaan qoys ay gaartay kaalmadoodii ayagana waa u mahad celinaynaa adikana waxaan leenahay khayr badan aad siiyo maanta waa maalintii gurmadka waa maalintii gargaarka dadka dhibaatadu ay gaartay indhaheenan ku aragnay hooyooyinka magaalada beledweyne dhaxdiisa taagan waxaan indhaheena ku aragnay waalidiinta waayeelka ah ee dusha lagu sido ee biyaha lala dhaxmarayo yaan maxaan ku raayaan aragnay waxaan indhaheena ku aragnay ilmaha yaryar ee guriga muxuu ahay laamiyeeriga saqafka kor saaran ee meesha muxuu ahay badbaadada ka jiriyay ayaan muxuu ahayaan aragnay marka waxaan leenahay dadkaas waa dadkeenni waa ehelkeenni ilmuhu waa ilmaheenni waayeelku waa waalidiinteenni intii dhimatay oo muxuu ayagoo gurmanay dhintane Allahna u naxariisto sabri iimaanna intii naga dhimatay Allah naga siiyo ayaguna hawl lagu dhinto meeshii ugu fiicnaaday ku dhinteen aan dhigana ayagoo u gurmanay dadkii dhintay muxuu ahay jannadii firdaws Allah ka waraabi walaalayaal mar kale xisbiga iyo taageerayaashiisa iyo xubnihiisa waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa dadaasheen laakiin dadaalka halkiisa ka sii kordhiya ku sii dara xad ma laha meel uu ku dhamaado ma laha sadaqo waa sadaqo yaraana male badnaana male dhiibisay leedahay
marka muxuu ahay khayr badan ayaan idin rajaynayaa mar kale waa u mahad celinayaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta meesha fadhido ee ugu weyn yahay gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare gudoomiye ku-xigeenka xisbiga xogayaha guud xildhibaanada xogayaasha iyo kuwa aan ahayn iyo dhalinyarada maamooyinka hormuudka ka ah muxuu ahay wixii baryahan howlaha la qabanayay dhammaan waa mahadsantihiin haddana aan halkeenna aan ka sii wadno waa mahadsantihiin